Dhacdada waxay ku bilaabanaysaa Canada oo eedeynaya kooxda yar ee Experience FA isagoo u sababeynaya fashilkiisii uu kaga haray kooxda weyn. Tacibana wuxuu isku dayaa inuu Canada xasuusiyo inuusan dadka kale eedeyn, laakiin taa beddelkeeda Canada wuxuu bilaabay inuu ku jeesjeeso Tacibana oo ah weeraryahan aan gool dhalin. Ka hor inta uusan ka tegin, Canada wuxuu yidhi, waxaan rajaynayaa in aan mar kale la ciyaaro Experience FA si aan uga dhigo inay ka shalayaan inaysan i xulan. Nakano ayaa markaa sheegay in macalinka cusub ee kooxda Musashino uu yahay nin weyn, isla markaana kooxdaas ay si adag u shaqeeyeen tan iyo markii laga diiday Experience FA. Ka hor intuusan raacin Canada wuxuu dadka u sheegay, waqtigan annaga ayaa nahay kooxda yar ee ugu fiican. Nojomi ayaa la arkaa isagoo qorsheynaya qaab ciyaareedka cusub ee kooxda isagoo Yoshitsune dib ugu soo celinaya weerarka. Yoshitsune oo dhaawac ka soo kacay wuxuu rajaynayaa inuu dib ugu laabto kooxda weyn. Qof walba wuu la yaabay, wuu farxay markuu dib ugu soo laabtay kooxda, waayo waa weeraryahan la isku halayn karo. Markii la isu keenay kooxda ka hor ciyaarta, Ashito lama helin. Yoshitsune wuxuu u yimid Otomo wuxuuna weydiiyey Ashito, wuuna ugu jawaabay. Wuxuu orod u baxay si uu maskaxda uga dejiyo. Qof walba waa la yaabay maxaa yeelay orod ka hor ciyaar wuxuu caadi ahaan keenaa daal. Dhanka kale Kato ayaa daba socota Ashito waxayna ka codsanaysaa inuu orodka joojiyo. Ashito wuxuu xasuustay hadalkii Canada wuxuuna naftiisa ku dhiirigeliyey inuu ciyaar la yaab leh soo bandhigo. Laakiin markuu maqlo in Hana timaadayso si ay ciyaarta u daawato si lama filaan ah ayuu u istaagay orodka wuxuuna dareemay inuu ka xoroobay walbahaarkii ciyaarta. Wuxuu u sheegay Kato, waan diyaar ahay, ciyaartu waa i sugaysaa. Kato wuu yaabay sababta uu Ashito u istaagay marka uu maqlo magaca Hana. Markaas ayaa ciyaartii bilaabatay. Ashito wuxuu istaagay booskiisa difaaca isagoo isku dayaya inuu xasuusto qorshayaashii Nozomi hore ugu sheegay. Si lama filaan ah, kooxda ka soo horjeeda waxay weerar ka bilaabeen booskiisa wuxuuna ku guul daraystay inuu joojiyo ciyaaryahanka hortiisa. Xubin kooxda ka tirsan ayaa u yimid wuxuuna ku yidhi, fadlan diiradda saar waxyaabaha asaasiga u ah difaaca. Markii ay ciyaarta weli wareersan tahay, Hana ayaa timid garoonka oo waxay ku qaylisay magaca Ashito. Marka uu maqlo codkeeda si lama filaan ah ayuu dareemay in tamar cusub ku soo noqotay. Wuxuu bilaabay inuu arko boosaska bannaan iyo baasaska suurtagalka ah ee kooxda ka soo horjeeda. Wuxuu soo jeediyey in Otomo buuxiyo booska difaaca bidix isagana wuxuu hore ugu dhaqaaqay weerar si uu kubadda uga saaro. Qof walba oo daawanayay waxaa ka mid ah Yoshitsune iyo Nojomi aad bay ula dhaceen dhaqaaqiisa. Ashito markuu weerarka galay wuxuu mar kale isku dayay inuu saadaaliyo dhaqdhaqaaqa kooxda ka soo horjeeda, laakiin wuu ku guul daraystay. Wuxuu dareemay in fahamka ciyaarta uu u baahan yahay wax ka badan keliya aragti. Si uu si sax ah u fahmo taatikada kooxda kale, wuxuu qorsheeyey inuu falanqeeyo booska ciyaartoyda. Wuxuu weydiiyey Otomo inuu boos gaar ah buuxiyo si isaga fursad ugu helo inuu weerar sameeyo. Arrintan waxay soo jiidatay dareenka Nozomi waxayna ku ammaantay Ashito awooddiisa ah inuu sawiro ciyaarta isla markaana daalacdo meesha dhibku ka imaanayo. Yoshitsune ayaa markaas baas fiican u diray Ashito si uu ciyaarta u qabsado. Baaskaas wuxuu noqday mid si gaar ah loo xasuusto wuxuuna ahaa mid halis ku noqday kooxda ka soo horjeeda. Markii dambe Yoshitsune wuxuu isku dayay inuu baas kale siiyo ciyaaryahan kale, laakiin kubaddii wuxuu si ula kac ah uga saaray xariiqda si uu u furo booskii uu Togashi rabay. Yoshitsune wuxuu isku qanciyey in uu isagu isku halaynayo halkii uu dadka kale ku dayi lahaa. Wuxuu qirtay in uu aad ula dhacsan yahay sida uu Ashito u ciyaarayo, inkasta oo uu naftiisa ka xanuunsanayo in laacibka cusub uu dhanka kale caan ka noqday. Ashito aad buu ugu farxay hadallada ka imaanaya weeraryahan weyn oo waayo arag ah sida Yoshitsune. Markaas ayaa bilaabatay qaybtii labaad ee ciyaarta. Ashito wuxuu xusuustay dhammaan hadalladii iyo dhiirigelintii uu ka helay Togashi iyo ciyaartoyda kale. Waxa uu go'aansaday inuu adeegsado aragtidiisa weyn ee difaaca. U adeego kooxda. Difaac noqdo u qalma magaca Experience FA. Laakiin kooxda ka soo horjeeda Musashino FA waxay si lama filaan ah u beddeleen qaab ciyaareedkoodii. Waxay si buuxda u hareereeyeen Yoshitsune taasoo keentay in uu kubadda gudbin waayo. Kooxda Musashino waxay dhiseen gidaar difaac oo adag iyagoo si buuxda ugu diidayaan weerar kasta. Ashito wuxuu ku qayliyey, si daacad ah u ciyaara. Qof walba ha qabto doorkiisa. Waxaa la beddelay ciyaaryahan dhaawacmay, waxaana lagu beddelay mid kale oo durba u sharxay Ashito qaabka cusub ee ciyaarta. Ashito ugu dambeyn wuxuu helay ogolaanshihii Nozomi si uu weerarka ugu biiro, laakiin wuxuu xasuusiyey, difaaca ha iloobin adiga ah asaaska. Otomo, Yoshitsune iyo Ashito waxay si fiican u abaabuleen weerar saddex geesood ah iyagoo isticmaalaya qorshe saddex xagal ah si ay difaacyada uga dhex baxaan. Ashito wuxuu si dhaqso leh u falanqeeyey boosaska kooxda wuxuuna arkay in Otomo uu wado baas fiican laakiin nasiib darro uu seegay. Kubaddii markay ka soo laabatay si lama filaan ah ayay ugu dhacday Ashito, markaas ayuu go'aan degdeg ah qaatay, madaxa ugu dhuftay goolkii ugu quruxda badnaa ciyaarta dhaliyey. Qof walba oo ay ka mid yihiin Nojomi, Yoshitsune iyo daawadayaashii kale aad bay ula dhaceen indhaha ciyaarta ee Ashito iyo aragtidiisa fog. Markii ciyaartu dhammaatay, Fukuda wuxuu la hadlay Ashito isagoo leh, waxaan ku ammaanayaa horumarkaaga difaaca. Haddii aad kulanka Musashino si la mid ah u ciyaarto waxaan kugu darayaa kooxda Team A. Markii ciyaartii hore lagu guulaystay, Ashito wuxuu la kulmay Hana wuxuuna ka codsaday inay timaado ciyaarta Musashino FA si ay u daawato. Laakiin nasiib darro, ka hor inta aysan wax badan wada sheegin, weriye xiiso leh oo aad ula dhacay Ashito ayaa la hadlay. Waxay siisay kaarkeeda ganacsi waxayna sheegtay inay rabto waraysi la xiriira ciyaarta soo socota. Markaas ayaa Otomo yimi wuxuuna ugu sheegay Ashito in Nozomi doonayo in laga saaro liiska ciyaartoyda ee ciyaarta Musashino. Ashito aad ayuu ula yaabay go'aankaas wuxuuna si degdeg ah u damcay inuu daawado ciyaartii ugu dambeysay ee Musashino FA si uu qorshe dagaal u sameeyo.
Otomo, Tachibana iyo Ashito waxay ka wada hadleen kooxdii Musashino oo leh difaac adag iyo weerar degdeg ah. Waxaa la sheegay in macalinka cusub ee kooxda Musashino uu yahay Sataki oo caan ku ah inuu dhiso koox ka kooban ciyaartoy la diiday inuu horumariyo tayadooda ilaa ay gaaraan heer sare. Ashito wuxuu la yaabay markuu maqlay taariikhda Sataki iyo guulihii xiriirka ahaa ee kooxdu heshay. Wuxuu xasuustay ballankii Fukuda ee ahaa inuusan weli u ogolaan inuu u ciyaaro kooxda tiim ee wuxuuna dareemay culays. Ciyaartoyda kale waxay ka hadlayeen sida kooxda Musashino ay u tahay koox khatar ah. Markii la tagay goobta tababarka, Sataki wuxuu si lama filaan ah ula kulmay Tachibana wuxuuna ku yidhi, si adag u shaqee. Mustaqbalkaaga kubadda wuu ifayaa. Tachibana wuxuu aad u qiirooday markuu maqlo hadalkaas, waayo waxay ahayd dhiirigelin uu ka helay macalinkiisii hore. Markii ciyaarta Musashino la bilaabay, Ashito wuu naxay markuu arkay sida ay kooxdaas u ciyaarayso. Laakiin si lama filaan ah waxay galeen qalad taatiko waxayna lumiyeen kubadda. Ashito wuxuu la yaabay, laakiin Tachibana ayaa sharaxay in taatikadaas uu Sataki nagu baray inagoo yar waa farsamo halis ah oo u baahan karti gaar ah. Musashino waxay adeegsadeen difaac firfircoon sababtoo ah ciyaartoydooda kale waxay si joogto ah u kacayaan garoonka, taasoo difaaca ka dhigaysa asaaska weerarka. Xalka isbadka ciyaarta, Ashito wuxuu la yaabay aragtidooda. Qof walba wuu garanayaa doorkiisa. Waa sida koox u shaqaysa. Wuxuu damcay inuu sidoo kale wax saaro, laakiin si lama filaan ah ayuu u istaagay markuu ka baqay inuu qalad sameeyo. Markaas ayaa Berufe timid, waxay si kama ah u taabatay Ashito, taasoo keentay inuu qayliyo isagoo ka xishoonaya taabashada. Inta ay sheekaysanayaan, gabadh la yiraahdo Miyako ayaa timid, waxayna Tachibana kala baxday. Markii hore, Ashito iyo Otomo waxay u maleeyeen inay saaxiibtiis tahay, laakiin runta ayaa ahayd Miyako waa walaashiis mataan ah, waxayna u ciyaartaa kooxda gabdhaha ee Musa oo ah koox ka duwan Musashinovki. Markii ay dib ugu laabteen hoygoodii, Kanada ayaa soo wacay isagoo caraysan. Wuxuu ku qaylinayay Ashito iyo kooxdiisa isagoo leh, aniga ayaa sabab u ah guulaha kooxda. Tachibana kooxda xigta lagama maqli doono. Wuxuu yareeyay saaxiibadii hore wuxuuna isku dayay inuu muujiyo kibir iyo isla weyni. Tachibana wuu xanaaqay wuxuuna telefoonka ka baxay. Ciyaartoydii kale waxay ku taliyeen in laga fogaado Kanada si aysan dhibaato u dhicin. Markii ay baxeen, waxay la kulmeen Hana oo sugaysay Ashito. Waxay weydiisay maxaa dhacay, laakiin Ashito kama jawaabin. Markaas ayay u sheegtay, waan sugayay go'aankaaga, waxaan sidoo kale ka helay dalab aan u diyaariyo qorshe cunto karibayaashii. Laakiin Ashito jawaab uma bixin, taas oo Hana ku niyad jebisay. Waxay tagtay iyadoo qalbi jabsan, waxaana muuqata in ay si dhab ah u danaynayso mustaqbalka Ashito. Markii Hana ka tagtay iyadoo qalbi jabtay, Ashito wuu garwaaqsaday inay si dhab ah u jeceshahay, isla markaana ay doonaysay inay si kalgacal leh u taageerto. Wuxuu si lama filaan ah u qayliyey isagoo leh, Hana wax xun ma samaynaynin, waxay rabtay inay sawirka iga ilaaliso. Wuxuu u sheegay Tachibana, koox ahaan waa in aan ciyaarnaa, kulanka soo socda waa inaan badinaa si aan u tusayno in aan isbedelnay. Haddii laga badiyo Musashino, kooxda way bahdilmi doontaa, waxaa la waayi doonaa kalsoonidii tababarayaasha, waxaa laga yaabaa in la kala diro. Kooxda ayaa u laabatay qolka hurdada, waxaana la isugu yeeray kulan degdeg ah si wax looga qabto xaaladda. Intii kulanku socday, Nojomi waxay sheegtay waa in ciyaaryahan walba yeeshaa dabeecad weeraryahanimo si ay Musashino ula tartamaan. Laakiin ciyaartoyda qaar waxay ka baqayeen in ay wajahaan Musashino oo ah koox si dhab ah loo qiimeeyo. Markaas ayuu Ashito istaagay wuxuuna yidhi, waa fursadeena. Waa waqtigeennii aan tusno in aanu kor u kacnay. Wuxuu ciyaartoyda kale u sheegay in tani ay tahay kulankii ugu muhiimsanaa, in guushani ay noqon karto dariiqa ay ugu gudbaan kooxda tiim ee in ay tusaan macallimiintooda in aysan ahayn ciyaartoy aan la isku halayn karin. Dhammaan ciyaartoyda waxay isku raaceen inay wada shaqeeyaan hirgeliyaan taatikadii. Nojomi kala taageeraan sidii qoys. Markii dambe, Ashito, Otomo iyo Tagashi ayaa wada ordaya. Ashito wuxuu kaftan kula jiraa Tagashi, isagoo weydiinaya, maxaad ku samaysay Takashima markaas? Togashi wuxuu si qosol leh u sheegay in ay arrin ay isfahmi waayeen ahayd, laakiin wax walba la ogaan doono marka la gaaro waqtiga ciyaarta. Waxaa dib loo milicsaday waqtigii uu Tagashi tijaabada ku galay Experience Free, waxaana loo sheegay, haddii aad si fiican u ciyaarto, waad ku biiri kartaa kooxda juniorka. Wuxuu si sharaf leh ugu biiray kooxda isagoo rajo ka qaba in uu noqdo laacib weyn. Markii ciyaartii tababarka bilaabatay, Togashi wuxuu damcay in uu ismuujiyo. Wuxuu baas fiican u diray Kuroda wuxuuna ku booriyey, kubadda dib ii soo celi. Weerar aan samayno. Laakiin si lama filaan ah, Kuroda ayaa kubaddiisii ula kac ah ugu laabtay Higashi, taasoo ciyaarta ku keentay qalalaase. Togashi wuxuu dareemay in Kuroda si ula kac ah u fashiliyey qorshihiisii. Ciyaarta kadib wuu cadhooday sababtoo ah ciyaartii waxaa daawanayay mas'uuliyiin sare oo dooran lahaa xiddigaha. Markii kooxda kale ay doonaysay inay gool dhaliyaan, Takashima wuxuu si geesinimo leh ugu booday kubadda isagoo naftiisa halis geliyey. Inkasta oo uu dhaawac soo gaaray, haddana wuu difaacay goolka, taasoo ay ciyaartoydu si weyn u ammaaneen. Kadib, Togashi iyo Takashima waxay galeen muran, dagaal afka ah iyo xanaaq. Labadooduba maba hadlin intii tababarka socday, waxayna is siiyeen indho kulul. Ashito ayaa dareemay in uu dagaal gudaha ah ka dhex taagan yahay kooxda. Wuxuu ka baqay in aysan badin karin haddii aysan midaysnayn. Tachibana ayaa soo galay qolka wuxuuna si qaylo leh u yidhi, qof walba ha iska cafiyo. Waqtigii aan isku duubnaan lahayn ayaa yimid. Ashito isna wuu hadalay, qorshaha Nojomi waa hubka aan ku difaacan karno sharafteena. Aan si daacad ah ugu ciyaarno Musashino. Kooxdii waxay ku heshiiyeen inay dagaalamaan sidii hal koox, inay difaacdaan magaca Experience, inay muujiyaan kartidooda dhabta ah. Intaas ayuu ku eegyahay qaybteennii Part 5. Fadlan la soco Part 6. Midigana asxaabta 5,000 subscribe waxyar aynu ka dhiman. Fadlan na gaarsiiya idinkoo mahadsan.
mida kale codkeyguna waa kanaa. Codkey hadaa xiisa qabtid waa kanaa codkey. Laakiin ani inaan codkey mar walba soo duubo way igu adagtahay magarad. Marka hadii oo maxaa ladahaye hadii ii fududaato inaan soo duubo waan soo duubaa. Hadii ii fududaan waysana waa kaa. Macsalaama channelka subscribe saar. 5 kun waxaa yar aan iga dhiman.